waxaa maanta si rasmi ah uga bilowday xaafadda Islii ay Soomaalidu ka degan tahay magaalada Nairobi olole ballaaran oo dhanka nadaafadda ah. Ololahaasi oo ay ka qayb qaateen inta badan bulshada Soomaaliyeed ee ku nool xaafadda tan Islii. Ololahan la dagaalanka qashinka ayaa waxaa soo qaban qaabiyey guddiga ganacsatada xaafaddan Islii ee Islii Business Community iyo guddoomiyaha degmada Kamakunji Mudane Yuusuf Xasan oo isagu muddooyinkan dambeba dadaal dheeraad ah ku bixinayay sidii wax looga qaban lahaa xaaladaha horumarinta arrimaha bulshada ee xaafadda tan Islii. Guddoomiye Yuusuf Xasan oo ka hadlayay goobtaasi ayaa khudbad qiiro leh u soo jeediyey dadweynihii ka qayb qaadanayay ololahaasi, waxaana ugu horreynba kula dardaarmay bulshada Soomaaliyeed inay ilaaliyaan nadaafadda oo ah shay aasaasi u ah nolosha aadamaha. diinta islaamku waxayna baraysaa in nadaafaddu ay shay muhiim tahay. nabigeena sallallahu alayhi wasallam uu nagala dardaarmay inaan nadaafadda ku fiicnaano. marka aad iyo aad bay muhiim u tahay. waxaanan jeclahay inaan mar labaad ugu mahadnaqo guddiga oo maqlay baaqi aan u jeediyey oo ahayd inaan wada shaqayno oo aan xaafadda nadaafadeeda ka shaqayno. xaafaddan waa xaafad ganacsiga ku fiican oo dad kumanaana ay maalin kastaba yimaadaan. waa xaafad dad fara badan ay degan yihiin. waa hoyigeeni caruurteedii ma ku nool. nadaafaddu waxay wax u dhimaysaa caafimaadka dadka, nolosha dadka ay hoos u dhigaysaa. marka meel qashinka sidan uu buuxo meel caafimaad ma noqon karto. meel dadku ay iman karaan oo ay u iman karaan booqasho ama ganacsi ma noqon karto. marka waxaan idinka codsanayaa dadkiina halkan degan in ay duruus idin noqoto maanta hawshan aan qabanay oo aad soo baxdaan oo maalin kastaba aad noqotaan kuwii wax ka qabta. guryihiina ha noqoto, jidadkiina ha noqoto, ganacsiga aad magaalada iyo dukaamada aad ku haysteen ha noqoto. intaasoo dhan aad ka wada shaqaysaan. tanna waa tilaabooyinka ugu horreeyaan ku wanaajinayno xaafadda. haddaad ogtihiin jidka Second Avenue dhismihii baa lagu bilaabay, gacanta lagu hayaa. nasiib wanaag ganacsato Soomaaliyeed baa dhisaysa. waxaanan rajaynayaa in ay sida ay guryahooda u dhisanayaan oo u jecel yihiin guryahooda inay haal fiican ka qabtaan oo hawshaasi si fiican oo aad iyo aad aan ugu bogno ay uga soo baxaan. nalkii waan soo gelinay. nalkii xaafadda inteeda badan nalkeedu wuu shaqaynayaa. toddobaadka dambaan si rasmi ahaana u furaynaa. jidka labaad ee First Avenue iyo jidkan aan taaganahay General Wairungi waa la dhisayaa. sidoo kale waxa ayana ummadda Soomaaliyeed ee ku nool xaafadda tan Islii ugu baaqay inay dhowraan nadaafadda xaafadooda oo ay ku dhisan tahay sharaftoodu. xubno ka mid ah guddiga ganacsatada Soomaaliyeed ee xaafadda tan Islii. Islii waxaa loo yaqaanaa meel shaqo badan, ganacsi badan yaal, laakiin wasakha aan la soo gali karin. dariiqyada ka sokow waxa ugu daran waxa weeye biyaha wasakhda ah ee dariiqyada daadsan. kuwaana waxa keena waa ciyaalka yaryar oo qashinka inta loo dhiibo oo ay siwajka ku guraan. siwajku waa caburmaya, markuu caburmana biyihii waa soo butaacayaan, waa qurun. waxa kale oo jira haddana guryaha ayaa laga soo saaraa garbage-ka badana, makhaayadaha soo saara garbage-kan. marka waxaa loo dhiibaa haddana wiilal yaryar oo ku daadiya meel alla meeshay rabaan. arrintan dadka aad bay u dhibtay. annagu intayna dhibtay oo naga badatay baa markii dambe iska ilownay. meel walbana waana lagu caayaa. dadka dhow meeshaan u badan waa taqaanin waa annagaa degan. annaguna marka waxaana lagu sheegaa oo la yidhaahdaa dadkan dad muslina weeye, islaamnimaduna nadaafaday jeceshahay. kuwani maxay rabaan? maxaa ay nadaafadda uga shaqayn la'yihiin? go'aan marka waxaan gaarnay annagoo talo fiican ka haysanna xildhibaanka annaga Yuusuf Xasan. ololahan saaka oo ahaa mid aan loo kala hadhin ayaa waxa uu ku bilowday si dardar leh, waxaana ugu horreynba furay ololahaasi nadaafadda guddoomiyaha degmada Kamakunji Mudane Yuusuf Xasan oo ah muwaadin Soomaaliyeed oo muddadii koobnayd uu xilka hayay ay dadaaladiisa dhanka horumarintu ka dhex muuqanayaan xaafaddan. waxaana maanta la arkayay isagoo u qalab qaatay nadiifinta xaafadda Islii, isla markaana gacmihiisa ku guraya qaybo ka mid ah qashinka buuxdhaafiyey waddooyinka xaafadda tan Islii. dareenkayga hadda maxaan idhaahdaa meeshan waad aragteen sida qashinku uu yaalo. meel la dayacay oo intii muddo badan wax qashin aan laga gurin. shicibka xaafadda ku noolna hadda waxay u egyihiin inay iska seexdeen oo ay raalli ka yihiin oo qashinkan ay sidaa u dulmarayaan. marka maanta waxaan go'aan ku gaarnay inaan isu nimaadno oo
aan wax ka qabanno. inkasta oo ololahan ay ka qayb qaateen inta badan qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku nool xaafadda Tanisley ayaa haddana waxaa si gaar ah uga dhex muuqanayay ururka dhalinyarada Soomaaliyeed ee USOM muddadii ay nadiifintu socotay waxaana wax ka weydiiyay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta ururka USOM dareenkooda ku aadan ololahan maanta. dadaaladan aad arkaysaan ayaa waxay qayb ka yihiin howlo muddooyinkan dambe ay iska kaashanayaan guddiga ganacsatada ee xaafadda Islii iyo MPga laga soo doorto degmada Kaabakuuji Yuusuf Xasan oo iyagu haatan u tafaxaytay sidii wax uga qaban lahaayeen dhibaatooyinka laxaad kale ee ka jira xaafadda ay Soomaalidu degan tahay ee Islii. Cabdiraxmaan Cumar Cabdi Cabdiraxmaan Soomaali Royal TV Nairobi Kenya.